waxaa wasaaradda maaliyadda lagu soo gabagabeeyey buugga hagaha dakhliga macdanta oo muddo soo socday waxaana barnaamijkaasi ka qayb qaatay oo ka doodayey wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka wasaaradda macdanta, agaasimayaasha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo macdanta, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta saraakiisha sarsare ee wasaaradaha maaliyadda iyo macdanta. kulankaasi oo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka macdanta ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Salabaan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta injineer Axmed Jaamac Barre. maanta waxay halkan isugu nimi kulan hawleed hawl ay soo wadeen labada wasaaradood ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ahayd hawl shaqo oo ka dhexaysay labada wasaaradood. kulankii iyo hawshii gabagabadeedii baynu maanta halkan isugu nimi. waxaynu kusoo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda si uu kulankan inoogu iyo ujeedadiisa inoogu sharaxo. waxaan jira wasiirka wasaaradda macdanta kadibna si ugu soo dhaweeyay isna wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. alxamdulillahi rabbil caalamiin ubihi nasta'in calaa umuuri dunya wadiin. wasiirka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta, agaasima waxayada labada wasaaradood dhammaantiin wada salaamayna. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta kulley halkan waxaynu u fadhinaa maanta way bishii tahay markaa lixdii bisha May 2025. halkan waxaynu u fadhinaa maanta markaa inaynu ku qabanno gabagabadii buugyaraha dakhliga macdanta oo ay ka soo shaqeynayeen guddiga farsamada ee labada wasaaradood ee hogaaminaya labada agaasimiin oo muddo soo socday. oo mahad celinaya shaqada ay soo qabteen. ujeedadu waxay tahay uun markaa sidii labada wasaaradood isaga kaashan lahaayeen kobcinta iyo ka shaqaysiga macdanta si sharci ah, inagoo kobcinayna shaqada ay ka helayaan ummaddu, inagoo korinayna dhaqaalaha ka soo gelaya waddanka, inagoo u fududeynayna shirkadaha waddanka imanaya inay si fudud u helaan shuruucda waddanka iyo laysamada ay uga baahan yihiin wasaaradaha, iyo sidii wasaaradda labada wasaaradood u wada shaqayn lahaayeen markaa kobcinta dakhliga iyo markaasi ururinta dakhliga iyo shaqo abuurka labadaba ay ku wajahaan xagga macdanta. kulley maanta waxaynu fadhinaa inaynu soo gabagabino buuggaas. waana ku mahadsan yihiin wasiirkuna kulley waa ku mahadsan yahay. aad baa u mahadsan. ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaana ka warramay barnaamijka buugga hagaha dakhliga macdanta wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdilaahi Xasan Aadan. waxaanu ka warramay ahmiyadda ay leedahay iyo in ujeeddada kulankan muddada dheer soo socday oo ahaa kor u qaadista dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale kor u qaadista macdanta. waxaanu wasiirku ka warramay ahmiyadda barnaamijkan ama buugga hagaha dakhliga macdanta uu leeyahay. waxaanu yidhi maanta oo ay bishii May tahay 2024 halka wax wada fadhiya madaxdii wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo madaxdii wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ugu horeeyay wasiirkii iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waxya. ujeedada kulankan waxa weeyaan soo bandhigista buugga hagaha dakhliga macdanta. kulan hawleed ay yeesheen agaasimayaasha waxyaha ee labada wasaaradood oo socday 24 bishii labaad ilaa 25 bishii saddexaad ee 2025 ayaa waxa ka dhashay inay soo diyaariyaan buugyarahan qeexaya shuruucda iyo nidaamka lagu maamulayo dakhliga macdanta. ujeedada weyn waxa weeye in la iswaafajiyo shaqadii wasaaradda macdanta iyo tamarta ee ahayd korjoogistii ogolaanshihii dadka macdanta ka shaqeynaya iyo hogaamintii dadka ka shaqeeya macdanta iyo tamarta iyo dakhligii wasaaradda maaliyadda. si taasi la isula jaan qaado oo la isula meel dhigo ayaa muddadaasi uu kulankaasi socday. waxaanu ka dhashay bilowgii kulan ay yeesheen wasiirka maaliyadda iyo wasiirka macdanta iyo tamarta. waxaa soo gaboobay oo maanta halkan aanu
doonayna inaan kusoo bandhigno buugyaraha hagaha dakhliga macdanta oo ay soo diyaariyeen labada qaybood ama labada dhinac wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha iyadoo ujeedadu ay tahay in la fududeeyo ka ganacsiga iyo maalgashiga macdanta ee dalka si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka. ujeedada meesha aan u fadhinaa keliya ma aha in dakhli u soo xaroodo wasaaradda maaliyadda ama qaranka ee waxa weeye in uu kor u kaco dhaqaalaha dalku oo dad fara badan ay ka helaan shirkadaha macdanta ka shaqeynaya shaqooyin oo noqoto shaqo abuur iyo in dhaqaalaha dalku kor u kaco. shirku waa inoo furan yahay waxaana inoo soo bandhigi doona waxaan ku dhahday kooxdii kasoo shaqeysay tiimka kasoo shaqeeyey aad iyo aad baan u hambaleynayaa saraakiisha wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisha wasaaradda macdanta hawsha baaxadda leh ay muddo kasoo shaqeynayeen oo waxtar weyn u yeelan doonta qarankan oo leh hal ujeedo. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.